السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa ku soo dhaweetaan telefishinka Sancloud Somali TV oo aad uga barateen ama barnaamij cusub idin ka soo deyn doona magaalada Sancloud. maanta waxaa halkan igu marti ah Cabdi Xasan ku soo dhawow telefishinka. ilaahna mahad iskale aad aad ma san tahay sharafta igu soo sharftay maanta inaan halkan magaranaysaa Soomaalida Sancloud aan wixii magaranaysaa ilaahay isoo aan kaaga sheego marka ugu horeysa Cabdi Xasan waxaan rabaa inaan ku hormariyo eray yar oo ku saabsan Cabdi Xasan waxa uu kamid yahay dadweynihii ugu horeeyay oo magaaladan soo degay. Cabdi waxa uu ka shaqeeyaa xarumaha waxbarashada ee magaalada Sancloud. waxa uu ka shaqeeyay iskuulaad ma ka shaqeysay iskuulaad badan oo kala duwan oo ku yaala magaalada. waxa aad tahay maamulaha ururka Somali Volunteer ururka mutadawiciinta ama iska wax qabsatada Soomaalida sidoo kalena Cabdi waxa uu xubin ka yahay ururka la yiraahdo Somali Elder Council ururka odayaasha wada tashiga. sidaas oo kale Cabdi waxa uu hadda dhigtaa asaga qudhiisa jaamacadan Sancloud State University. Cabdi aad baan ku soo dhaweynayaa waxaana jeclahay waxyaalo badan inaan maanta ka wareysto mar labaad ku soo dhaw Sancloud Somali TV. Cabdi wareysigaygan maanta hadii lahayd ma wuxuu noqon doonaa mid yara dheer marka hadii lahayd ma inaan fadhi dheer labadeeda ku tala galnaa. aad baan ugu faraxsanahay inaad noo timaadid oo maanta nagala soo qayb gashid wareysigan. su'aasha ugu horeeyaan rabaa Cabdi inaan ku weydiiyo waxa weeye su'aal ku saabsan xaaladda guud ee magaaladan Sancloud. bal waxaan nooga warantaa balorta magaalada Sancloud waa magaalo caynkeeya goormay dadka ugu horeeyay Soomaalida soo degeen adiga shakhsiyan goormaad soo degtay magaaladan. bismillah aad aad u mahadsan marka labaad Sancloud hadaan kulay 10 sano ugu dambeeyay waan ku noolaa 2000kii ayaan soo degay markaana dad yar baa aad u yar baa ku noolaa dad miyaabal soo shaqo taga iyo dad markaa degayba marka kulay way iska adkay degitaankeedii hadda laakiin sidii waad ka wareysaa idina kaaga waramayso marka anigu soo degay maanta Sancloud wax weyn baa u dhaxeeya marka anigu iimaanayay aad iyo aad baa Soomaalida ugu yaray waxaan u maaynayaa 2 gabdhood iyo 10 nin baa deganaa marka anigu iimaanayay haddana dad aad fara badan baa degan markaas tii magaalada guud ahaan hadda waa lagu soo batay dadkii oo dhan baa soo degay waxaan xusuustaa apartmentiyaal quro ay deganaayeen hal family oo 120 unit ah hadda inay 97 unit ay degan tahay Soomaali quro ay degan tahay sida la adigay inay saasay waqtigan iyo waqtigii anigu soo degay ama waqtigii 2000kii 2001kii 2003kii iyo hadda aad baa different baa u dhaxeeyay magaalada la isfahmay waa la degay dad baa guriyo ka iibsaday meel waaweyn baa laga shaqeeyaa markaana dee kulinteedii joogtay hal meel baan u wada shaqo tagi jiray qaarada iskooladooda iska dhigan jireen marka guud ahaan magaalada aad iyo aad baa hadda Soomaalidu ay ugu fiday 7,000 baa lagu qiyaasaa laakiin lambar sax wali lama hayo laakiin mar haddaad ba arkaysid in aad iyo aad magaaladii abaarmatiyaasha konayaasheeda doontonkii ganacsigii dukaamadii makhaayadihii adigoo kamid oo haddana kusoo biiriyay TV cusub marka horumarka inta la kulay wax jira waa la taaban karaa. waxaan rabaa inaan wareysiga dhowr qaybood u kala qaybino maadaama aad shaatiyo badan ama shaqooyin kala badan aad magaalada aad ka haysid marba waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxyaalaha badan baan rabaa inaan ka wareysto. waa mid koowaad ee aan rabo inaan ka wareysto waxa weeye sidaan ogahayba waxaad ka shaqeysaa iskuulaadkan magaaladan Sancloud ama loo yaqaan district 742 waxaa dhigata arday fara badan oo Soomaaliyeed aad bay u sii kordhayeen baryahan. bal marka ugu horeyso waxaad iiga warantaa shaqada aad iskuulka adigan shakhsiyan ahaan aad ka haysid maxay tahay iskuulaadka shaqada aad u qabatid. bismillah horta iskoolka marka ugu horeysay waqti Soomaalidu soo degaysay baan waxaan ka caawin jiray dadka waliba qaybta adaltiga dadka waaweyn baan waxaan ka caawin jiray dadka soo dhaweyn jiray argagaxada u sharixi jiray yani waxaan sii jiray orientation ama waxyaalaha ma garanaysaa ruumka meesha marka interviewga laga soo qaado baan galaasada tusi jiray xagga ma garanaysaa high schoolada ama dugsiyada hoose ama dugsiyada dhaxana marka ardayda Soomaaliyeed timaado baan waaridka raaci jiro volunteer baan halka aan uga shaqeyn jiray markii dambana waa la shaqeeyay oo muddo hadda 5 sano ama 4 sano
5 sano volunteer baan ugu shaqaynayay 4 sanana waa ka shaqaynayay marka shaqada aan ugu ahayo waxaan u dhaxeeyaa iskoolka iyo dadka macallimiinta ama waalidiinta ardayda iyo maamulka ayaan u dhaxeeyaa marka waxaan marka hore volunteer baan ugu shaqayn jiray laakiin hal nin oo Soomaaliyeed bay qaateen oo iga horeeyay oo iskoolka magaranaysaay dugsiga hoose ay u qaateen anigana markii dambe high schoolkan marka aan aaday marka waalidkaan u turjunaa ciyaalkan waxaan siinaa magaranaysaay orientation oo ah yani waxa weeye wadanka siduu ola qabsan lahaa ama galaasyada tan iyo kuwii Afrika ama wadankan ama iskoolkan ama waxyaalaha intaasaan siinaa shaqadayda waxaan ku magacaabanahay culture marka hore waxaan ahaa paraprofessional wax loo yaqaano macallin magaranaysaay assistant macallin laakiin hadda title kale loo bedelay marka Soomaalidu soo badato yani magac kale hadda la yiraahdo waxaan ka qabanaa anagu ciyaalka ayaan ku caawinaa wixii homework oo marka macallinku uu gaari waayo waxaan waalidkood baan wacnaa shirarkan waalidka u ballaminaa yani waalidku waxadana kulli waxa la sameeyay oo kale aan awal haysan teknolojiya cusub oo la yiraahdo Skyware waxay sameynayaan ardaygu waxa la soconaysa meeshuu maray taana aan access baan u haysanaa ama waxaan u haysanaa ogolaasho inaan eegno ardayga inuu daahay galaaskiisu meeshuu marayo inuu galaaska ku dhacay inta homework lagu leeyahay waxyaalahaas saakada laga bilaabo 15 ilmood baan jeegareeyay markaan shaqada soo galay yani meesha ay marayaan marka shaqada iyadu waa ciyaalka Soomaaliyeedna waxaan siinaa ma garanaysaa waa baraarujinaa waalidka iyo ciyaalka iyo iskoolka baan isku xidhnaa anagu macallin ma nihin يعني أساساً principal منهين teacher منهي وليس ما هيستو لكن باهيدي مركي سومالي دوتين بعنانا نلوبها aad baad mahadsantahay waxaan rabaa su'aalo badan inaan ka weydiiyo qaybta ardayda hase ahaatee laakiin ardayda waxaan rabnaa inaan u dhigano gadaal marka hore waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dadkan cusub ee badanaa iskuulaad ka shaqeeya waan ogahay waxaa ka shaqeeya hadda shaqaale badan meeqa lagu qiyaasaa numberka hadda shaqeeya oo ku shaqeeya ama paraprofessional ku shaqeeya Soomaali ah ama ku shaqeeya waxa la yiraahdo cultural navigator ama maxaa madaxa bal iga waran shaqaalaha meeqa lagu qiyaasaa ka shaqeeya iskuulaadka shaqaalaha Soomaalida hadaan kaaga waran markii ugu badnaa tan bay gaareen 18 halkaas ay qof baa tagay qof baa soo galaya marka wali 16 iskool baa meesha ku yaal marka 12 baan anagu ka shaqeynaa 16 iskool oo Soomaalidu ay badanaa tagto dhigato sida la diraa anagu ilaa 18 baan mar labaatan waa gaarnay laakiin dhowr qof baa naga tagay madaxda sheegaysidna niyo meesha ana ugu soo horeeyay wali ana madax ma noqon marka sida la digeed waa weeye garbasiba baan marka midna waa ku sheegaya mar hore hadalkaasi way dhaafay Soomaalida title badan qofkii wata ma in la daba dhigtaa rabtaa xukunka waa la jecel yahay anu magaalada way iska taganahay hado waa halkaan bal hayu soo leeyahay waxaad iiga warantaa oo rabaa inaan ku weydiiyo waxaan malaynayaa shaqo culus baad u haysaan iskuulaadka muddana dadka magaaladeeda degan waa loo talameeyay in laga helo dad iskuulaad ka shaqeeya mustaqbalkana haddii ilaahay idin waxaan rajayn doonaa in la heli doono macallimiin sidaas oo kale wax barta oo ardayda wax bara sababtoo tahay macallinka labada luuqadood yaqaana macallinka halka luuqad yaqaana waxaan malaynayaa wuu kaga fiicnaan doonaa inuu baro ardayga qaasaan ardayda cusub soo